السلام الله عليكم isku soo noqod wanaagsan maanta waxaynu qaadan doonaa maadadeena pharmacology-ga oo ay noo ahayd maadadeena labaad ee sanadka kan aynu ugu talagalnay in aynu ugu faa'iideyno daawadayaasheena maadada tani waa maadada daawooyinka maanta waxaynu qaadan doonaa casharkeeni koowaad oo noqon doono introduction to pharmacology introduction-ka waxaynu ku baran doonaa laba qodob oo ah concepts of pharmacology iyo qodobka labaad oo noqon doono branches-ka ay leedahay maadada tani waxaan rajaynayaa ilaa dhamaadka inaad muuqaalkaani dhamaysan doonto biidnillaahi jalla wacala ereyga kan ee pharmacology waxa uu ka yimid laba erey ka mid ah luqadda Giriiga kuwaas oo kala ah pharmakon iyo logi. Pharmakon waxaa loola jeedaa daawada oo ah medicine or drug. Logina waxaa loola jeedaa iyadana barashadii. Marka la isku qabto marka waxay noqonayaan barashada daawada. Haddaba qeexitaanka ay leedahay halkan aynu ku sheegi doono waxuu noqon doonaa waa barashada daawooyinka iyo falgalada ay la yeelan doonaan noolaha qaatay daawadaasi. Laamaha maadada tani ee pharmacology-ga ay leedahay. Laamaha ay leedahay waa labo kuwaas oo aad muhiim u ah waxaana la kala yiraahdaa pharmacokinetics iyo pharmacodynamics. Sida magacyadooda baad ka dheehan karto pharmacokinetics waxay ka kooban tahay laba erey oo kala ah pharmaco oo loola jeedo drug, ereyga kinesisna waxa uu taagan yahay dhaqaaq. Haddaba labada erey marka la isku qabto waxay noqon doontaa socodka daawada. Si kale hadaynu u niraahno waa waxa jirka uu ku sameyn doono daawada. Waxa jirka uu ku sameynayo daawada ayaa loo yaqaanaa pharmacokinetic. Weli maadan fahmin ayaan filayaa. Okay, aan ku sii cadeeyo hadalkani. Daawada markay jirka soo gasho waxa qaata qaybiya jijibiya marka dambana qashin saar ka dhiga jirka. haddaba shaqadaasi uu qabtay waxaa loo yaqaanaa jirka pharmacokinetics. Pharmacodynamics waxay noqon kartaa pharmaco oo ah drug, dynamics oo noqon doonto power. haddaba waa awoodda daawada. Awoodda daawada si kale aynu dhahno waa waxa daawada ay ku sameyso jirka. Marka uu qofka qaato daawo waxa ay daawadaasi soo saartaa effect ay soo saartaa. Effect ay soo saarayso wuxuu noqon karaa daawadaasi in ay noqoto daawadaasi inay soo saarto falgal inay soo saarto, in daawadaasi ay daawo la falgasho, in ay qabato hawshii loo qaatay waxay tahay hawsha loo qaatay inay xanuun baabi'i noqoto, inay qanajibi noqoto, effectii loogu talagalay ay soo saarto marka. haddaba haddii falgalkaasi ay sameyso taasi waxaynu ku tilmaami karnaa awoodda daawada ay ku saameysay jirka. Waad ila fahantay ayaan filayaa hadda labadaas erey waxa loola jeedo. welina waa sii sharxayna laamaha pharmacology-ga. haddaba aynu sharaxno jaantuska kani si aynu wax badan uga fahanno laamahaasi. Pharmacokinetics marka la qaato daawadaasi waxa uu jirka ku sameeyaa absorption. kadib marka uu jirka absorption ku sameeyo oo uu qaato waxaa dhacaya in daawada la keeno ama ay ku soo badataba dhiiga, khaasatan systemic circulation-ka ay soo galaysaa. daawada markay soo gasho wareegga dhiiga saddex ayaa loo qaybin doonaa. qayb waxaa lagu sameyn doonaa distribution, waxaa la raacin doonaa nudayaasha ayaa loo geyn doonaa. qayb waxaa lagu sameyn doonaa elimination oo ay micnaheedu tahay waxaa daawada lagu sameyn doonaa metabolism, kadibna jirka ayaa qashin saar laga sameyn doonaa oo jirka ayaa laga saari doonaa. wadada saddexaad la marsiin doono daawada soo gashay systemic circulation-ka ayaa ah in daawada la geeyo site of action. Site of action waa halkee? waa halka bogta, halka loo baahan yahay in daawadaasi ay wax ka qabato ayaa la geyn doonaa. kadib markay daawada soo gaarto site of action, goobtii loogu talgalay in ay ka falgasho, waxaa meesha ku dhamaanaya laanta koowaad ee pharmacokinetics oo ahayd socodka daawada. hadda waxaa bilaabmaya pharmacodynamic oo ah awoodda daawada sidii ay daawada u soo saari lahayd biological effect ama
effectiveness-kii loogu talgalay in ay meesha ka samayso. daawada markaasi waxay samayn doontaa pharmacologic effect, saameyn daaweyn. daawadaasi effectiga soo saari doonto waxa uu noqon doonaa toxicity, oo ah qofka inuu ku sumoobo. goormuu qofku ku sumoobayaa? qofka wuxuu ku sumoobi doonaa daawada laba mid markay dhacdo. midda koowaad oo ah qofka marka uu overdose qaato, oo ah tankii loogu talgalay tan ka badan daawada markuu ka qaato waxay ku noqonaysaa inuu ku sumoobo. mar labaad ayaa ah marka uu qofka qaato daawo aan isaga loo qorin oo uu sameeyo drug abuse, waxaa dhici doonto in qofkaasi uu ku sumoobo daawadaasi. effectiveness ayaa jira. effectiveness-ka waa maxay? in daawadii waxii loo isticmaalay oo ahayd ciladii loo isticmaalay daawadaasi in ay wax ka qabato, oo ah effectiveness. prognosiskii laga rabay daawadaasi in ay samayso ayaa meesha ku ilaanaya, oo ah qofkii qandha ayaa jirtay waxay noqon doonaan in uu ka bogsoodo. sidaasi markay dhacdo marka waxaa meesha ka imaanaya effecti daawada ay keentay, oo ah in qofkaasi uu noqdo qof fiyo. waxaan filayaa in jaantuskani aad ila fahantay. waa maxay dawo? ereyga dawo ama drug waxaa laga keenay luqadda Faransiiska. ereyga asal ahaan uu ka soo jeedana waxaa loo yaqaanaa drug, oo ay micnaheedu tahay dry herbal, oo micnaheedu yahay daawo dhereedka qalalan. daawo waxaa loo yaqaanaa markaynu qeexno wax walbo oo aan raashin ahayn, haddana ka samaysan kiimikooyin, kaasoo saameeya maskaxda iyo jirka qaabka ay u shaqeeyaan. xaaladda markaasi uu ku jiray qofka ka hor inta uusan qaadan daawada ayay wax ka bedelaan. hadduu qofka ahaa qof xanuunsan, waxay ka dhigaan qof caafimaad qabo. wax walboo dhib ah, complain walba ha noqdo, waxa uu qofkaasi daawadaasi u isticmaalay waxa ay noqonaysaa mid keenta effect, kaasoo saameyn doona maskaxdii iyo jirkaba. dosage form of drug, qiyaas ahaan qaabka ay u samaysan tahay dawada. dawada waxay u samaysnaan kartaa qaybo badan. waxaa ka mid ah qaab loo yaqaano tablet, oo ah sida daawooyinka ay ka mid yihiin paracetamolka oo kale, aspiriniska oo kale, chloroquineka oo kale, dhammaan waxay soo galaan tablet. qiyaasta kale daawada ay u jiri karto ayaa ah capsule, qaab inay u samaysnaato capsule ah. capsule waa maxay? sida daawooyinka loo yaqaano capsuleska oo uu ka mid yahay amoxicillinka oo kale, penicillinka oo kale, waxay soo galaan qiyaasta capsuleka. qaab waxay u jiri karaan injection, irbad ah, ha noqoto mid laga qaato IV-ga, ha noqoto mid laga qaato IM-ka. intaa kaliya kuma ekee, daawada waxay kale u jiri kartaa qaab drops ah, waxay u jiri kartaa qaab goojo oo kale. daawada waxay kale u jiri kartaa qaab ointment ah, qaab waxay u jiri kartaa boomata ah, qaab ointment ah oo la marinayo maqaarka, ama waxay kale u jiri kartaa suppositories, daawooyinka ka samaysan kaniinyo, kuwaasoo dhalaala markii la geeyo qaybo ka mid ah jirka, sida vaginal suppositories ayaa jiro iyo kuwo kale iyo kasii badan. haddana aynu fiirino noocyada magacyada daawada. daawada waxay yeelan kartaa 3 magac. 3 magac ay ka koobnaan karta daawada ayaa ah chemical name, generic name iyo commercial name. chemical name-ka waxa uu noqon doonaa kiimikooyinka ay ka samaysan tahay daawadaasi, iyagoo compounds la isku geeyay ayaa loo yaqaanaa chemical name. generic name waxaa loo yaqaanaa magaca ay caan ku tahay daawadaasi ee dhaqaatiirta inta badan qoraan ayaa loo yaqaanaa generic name. commercial name ama brand name waa la yiraahdaa, trade name xataa waa loo yaqaanaa. waxa uu noqonayaa isagana magaca daawadaasi suuqgeynta loogu sameeyo, magaca daawadaasi suuqa lagu geeyo. inta badan waan aragnaa daawooyinka qaar marka dhakhtarka uu soo qoro suuqa la geeyo, magacaad ku soo qaadanaysid ma aha magaca ku qoran baakada. noocaasi marka wuxuu noqonayaa magaca ugu horeeya aad arkaysid waa commercial name. laga yaabaa hadaad sii baarbaartid inaad aragtid magacii. inagoo sii bayaaninayna hadalkani, tusaalahaan daawadani loo yaqaano acetaminophen waa magaca ay caanka ku tahay oo loo yaqaano generic name, waa magaca dhaqaatiirta iyo caalamka oo dhanba universally laga wada yaqaano. magaca ay magaalada kusoo gasho ama ganacsi ahaan loo gadan waxaa loo yaqaano Tylenol. chemical name ahaan magaca kiimikooyinka ay ka samaysan tahayna waa kan, waxay ka samaysan tahay N4-hydroxyphenyl acetamate ayay ka samaysan tahay. hadda daawadani loo yaqaano aspirin, magaca kiimika ahaan ay u samaysan tahay waa acetyl salicylic acid. magaca ay suuqa ku taalna waxaa loo yaqaanaa Disprin. suuqa daawada magaca ay ku taalo waxaa loo yaqaanaa brand name ama commercial name. magaca rasmiga ay leedahay waxaa loo yaqaanaa generic name. kiimikooyinka uu ka samaysan yahay in la isku dardaray compoundskoodana waxaa loo yaqaanaa
chemical name. Ilaha laga helo daawooyinka. Daawooyinka waxaa laga helaa laba sources oo aad u weyn. Labada sources ee laga helo waxaa ka mid ah kuwo dabiici ah iyo kuwo sinaaci ah. Kuwa dabiiciga ah haddaynu dul istaagno waa kuwo ka soo jeeda asal ahaanba ama laga keenay noole ama shay dabiici ah. Aynu fiirino. Kuwa dabiiciga ah waxaa ka mid ah kuwa laga hela dhirta ay ka mid yihiin daawooyinka loo yaqaano atropine, morphine, quinine. Waxaa laga helaa ama laga sameeyaa daawooyinkaasi dhirta. Daawooyin laga helo waxaa jiro xayawaanada sida daawada loo yaqaano insulin oo kale, heparin oo kale, gonadotropin oo kale. Waxaa laga helaa xayawaanada. Waxay ka mid yihiin kuwa sida dabiiciga ah loo helo. Macdanta oo kale, magnesium sulfate oo kale iyo aluminum hydroxide waxay qayb ka yihiin iyagana kuwa sida dabiiciga ah loo helo. Waxaa ka mid ah kuwa laga sameeyo microorganisms oo ah nooleyaasha ilma aragtida ah daawooyin laga sameeyo ayaa jira. Maadaama iyaga yihiin kuwa ka soo jeedo noole, waxaa lagu tiriyaa source ka ah kuwa dabiiciga ah. Daawooyinka laga sameeyo microorganismska sida daawooyinka antibioticska loo yaqaano penicillinska oo kale iyo cephalosporinska waxa ay soo galaan qaybta tani ah kuwa dabiiciga ah. Ilaha sinaaciga ah daawooyinka laga helo waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaano omeprazolka oo kale, quinoloniska oo kale, sulfonamideska oo kale. Kuwaasi waa la sameeyaa laakiin maaha kuwa si dabiici ah loo helo ee waa kuwa gacan ku rimas ah, gacan ayaa lagu sameeyaa. Marinada daawada ay jirkeena u soo marto. Meelaha jirkeena daawada uu ka qaato. Jirkeena daawada waxa uu ka qaataa marka loo qaybiyo laba qaybood. Qayb systemic ah iyo qayb local ah. Qaybta localka waxay noqonaysaa in daawada ay soo marto GIT-ga ama toos u tagto systemic circulation-ka. Qaybta daawada marka hore ay soo marayso inta aysan gaarin ka hor systemic circulation-ka waxaa loo yaqaanaa enteral route-kani waxa ay daawada mari doontaa ama ay ka dhex dusi doontaa GIT-ga oo ahaa gastrointestinal tract, tubada kasoo bilaabanaysa afka gaaraysana ilaa barida. Enteral route-ka marka wuxuu u kala baxaa isagana oral, sublingual iyo rectal. Oralka waa daawada afka laga qaato normally inta badan baynu isticmaalno. Sublingualka ayaa ka mid ah oo daawooyinka carabka hoostiisa laga qaato iyo rectal oo ah daawooyinka laga qaato barida. Parenteralka oo ahayd daawooyinka meelaha daawooyinka marka laga qaato si toos ah u taga systemic circulation-ka waxaa ka mid ah inhalation, kuwa hawada neefta lagu qaato sida qaar ka mid ah suuxiyaasha ama anesthesial drugs-ka loo isticmaalo, injectionska, transdermal, daawooyinka maqaarka lagu duro. Kuwa injectionska markaynu ka hadlayno cirbadaha waxay u kala baxaan ama inta badan ugu muhiimsan kuwa laga qaato xididka, kuwa laga qaato murqaha, kuwa laga qaato maqaarka hoostiisa loo yaqaano subcutaneous-ka SC laga qaato maqaarka hoostiisa. Qaybta localka hadaynu u gudubnana waxaa ka mid ah maqaarka oo kale ointmentska la marsado, skin topicalki. Waxaa ka mid ah intranasal, kuwa la geliyo sanka, kuwa drops iyagoo ah isha lagu shubto, kuwa loo isticmaalo mucosal throat-ka, vaginaha, mouth ear-ka, dhegta, xubinta taranka dumarka, afka iyo qaybta dhuunta ee gudaha ku taala ee aan banaanka soo oolin. Qaybtaasina xuubka ay ka samaysan tahay mucoska ah. Intaasi daawooyinka loo isticmaalo iyagana waa local. Inhalation-ka iyo transdermal-kana halkani waa ay soo galaan. waxaa halkaa inooga eg casharkeenii maanta. Haddii ay jiraan su'aalo ama oraah aad inala wadaagaysid inoogu dhaaf qaybta hoose ee commentiga. Casharkani casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.